ku soo dhawaada Somali Media Action. Hadday tahay daawada markii kugu soo horreysay oo aad daawata Somali Media Action, fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe-ka noo saarto amaatiniin. weli waxaa ka socda dalka Mareykanka mudaharaad aad iyo aad u xoogan kuwaas oo saameeya nolosha dadkaasi kadib markii uu gacanta ciidamada booliiska Mareykanka uu ku baxay ninka la yiraahdo George Floyd oo asal ahaan kasoo jeeda qaaradda Afrika. dalka Mareykanka waxaa ka bilowday dibadbax aad iyo aad weyn kuwaas oo dhigayaan shacabka dalka Mareykanka degan. Floyd George ayaa dilkiisa aad dunida u argagaxday kadib markii ciidamada Mareykanka ay si urkac ah u dileen nafsadiisa u dhaafiyeen. sidee daadka oo kale ayuu dalka Mareykanka u qabsaday mudaharaad aad u xoogan. hase ahaatee madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa amar ku siiyay ciidamada FBI ciidamada booliiska Mareykanka ee CNN in ay ka hortagaan dadkaas mudaharaaday. ciidamada Mareykanka ayaa la soo daabulay ayadoo la geejiyay hore ee dadka meelaha ay mudaharaadka ku dhigayaan. Master Donald Trump ayaa sheegay inuu xaalad military dalka u gelin doono siduu u hakiyo mudaharaadkan xoogan ee dalka ka jira. dilkii George Floyd ayaa wuxuu noqday wax taariikhda ay xustay dalka Mareykanka. hase ahaatee Mr. Donald Trump ayaa lagu eedeeyay inuu cunsuri weyn u yahay maadaama uu arrintaasi wax uu oorah ama hadal uusan ka dhihin. hase ahaatee dhankii laga sugayay Donald Trump in uu shacabka dejiyo ayuu wuxuu ciidamada ku amray inay xaalad military xaaladda ku xalliyaan. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Obama ayaa ku dhaliilay Donald Trump dhaqanka madowga uu geysanayo, waxaana inta badan siyaasiyiinta dalka Mareykanka iyo hogaamiyaashii hore ay ku tilmaameen hogaamiyihii ugu xumaaya dalka Mareykanka soo mara. hase ahaatee Mr. Donald Trump oo dadka cadaanka aad iyo aad ay u taageersan yihiin ayaa ku hanjabay inuu xaalad military dalka uu gelin doono uu ku xallin doono arrintan mudaharaadkani. shacabka ayaa haddaba cabsi xoogan ka muujiyay hadalka Donald Trump taasoo ah inuu ku xallin doono xaalad military dalka. ayaa ciidamo la soo dhoobay ciidamadii u dambeeyay FBI ayaa wadooyinka la soo dhoobay kuwaasoo la rabay in looga hortago shacabka mudaharaadka sameynaya. hase ahaatee dadka ayaa keli u socda weliba ay aan ka cabsanayn ciidanka dalka Mareykanka ayaa wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u xun taasoo dunida dhan ay indhahooda ku hayso. halkaasi waxaa joogta saxaafadda caalamka kuwaasoo warbixinada ka gudbinaya dalka Mareykanka. Mr. Donald Trump ayaa la filayaa in ay saameyso arrintan doorashadiisa sanadka soo socda taasoo uusan ka qaybgelin karin doorashooyinka ka bilaaban doona dalka Mareykanka. Mr. Donald Trump ayaa tan waxay ku noqon doontaa dhabar jab aad iyo aad u xoogan oo soo gaara. madaxweynaha ayaa weli ku adkeysanaya inuu xaalad military ku xallin doono. hase ahaatee dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa sheegaya in uu Mareykanka jawi cusub u guuray. Mareykanka ayaa sii daciifayay awoodiisa, waxayna ku tilmaameen Mareykanka hogaamiyaasha dambe ee dalka hogaamin doona in ay dalka u keeni doonaan dhowr jabhad aad u xoogan kaasoo ka saari karta Mareykanka awoodda dunida ee lambar 1-ka. hase ahaatee arrintan waxaa jaanis u arka Ruushka iyo China kuwaasoo kula tartamaya awoodda dunida. Mareykanka waxay tan ku noqon doontaa dhabar jab aad u xoogan. ciidamada dalka Mareykanka ayaa lagu soo daabulay gobollada dalka Mareykanka kuwaasoo la rabay in looga hortago dibadbaxa aadka u xoogan ee ka soconaya dalka Mareykanka ayaa xal u arkay in xaalad military lagu xalliyo. Donald Trump ayaa dhag u siineen dadka siyaasiyiinta ama dadka dhaliila siyaasadiisa kuwaas oo sheegay inuu madaxweynaha uu ku qaldan yahay inuu isticmaalo xaalad military arrinta mudaharaadka. hase ahaatee dad qaar ayaa qaba inaan la hureynin in xaalad military dalka la geliyo sida looga hortago mudaharaadkani, waxayna ka cabso dadka siyaasadda falanqeeya ay sheegayaan in ay ku noqon doonto dalka Mareykanka dhibaato aad u xoogan
haddii xadhig waayaan mudaharaadkan ayaa geystay guri aad u tiro badan iyo in ay gubtaan halka baabuurta ciidamadana qaarkood la gubay, taas oo dhibaato weyn ku ah. waxaana hakad galay ganacsiga dalka Maraykanka iyo isku socodka gawaarida. taasna waxay dhabarjar xoogan ku tahay dalka iyo horumarkiisa. hase ahaatee Maraykanka ayaa adeegsanaya diyaaradaha iyo qidadiisii ugu dambeysay taas uu rabo inuu kaga hortago dadka mudaharaadaya. hase ahaatee weli hadda waxaa loo jeedaa in ay xoogaa hakad yar uu ku yimid dadka mudaharaadayay, kuwaas oo madaxweynaha Donald Trump, kaasoo ah soo majeesta caan ah, waxa uu dhahana ka dhabeeya hadalkiisii uu ku abuuray cabsi. diyaaradaha sunta dadka ka ilmeysiiya xambaara ayaa hawada sare duulaya iyadoo la rabo in lagu hakiyo arrintaasi. hase ahaatee hadda sidaad arkaysaan xaaladda ayaa sidii hore dhaanta, waxaana la filayaa usbuucyada soo aadan in arrintaani lasoo gabagabeeyo. ciidamada militariga FBI-da ayaa ka qayb ah in ay ka hortagaan arrintaani. waa markii ugu horreysay dalka Maraykanka xaaladan oo kale ay galaan, taasoo uu keena nin madow dilkiisa. 11 nin ayaa lagu dilay dalka Maraykanka sanadkii aan soo dhaafnay. hase ahaatee sanadkan ayaa George Floyd arrintiisa dhibaato weyn keentay, taasoo taariikhda gashay. Mr. Floyd iyo ehelkiisa ayaa madaxda dalka ay u tageen, kuwaasoo ku sabarsiinayaan in dadkii dilay Floyd ay maxkamadda ciidamada qalabka sida dalka Maraykanka la soo saari doono. hase ahaatee waxaa kaloo saxaafadda soo warinaysa 3 nin kale oo meesha taagnaa in iyadana gacanta lagu soo dhigay si ay wax looga weydiiyo arrintaasi. laakiin waxaa u xiran ninkii dilay sida live social media looga daawanay. ninkaas ayay weli xabsiga dhex yaalla, waxaana maxkamadda ay sheegtay inay goor dhow arrintiisi ay soo afjari doonto. halka aad naga daawanaysaan waa Somali Media Action. hadday tahay daawada markii ugu horreysay oo soo daawata channelka, waxaan kaa codsanayn inaad subscribe-ka nagu caawiso. mahadsanidin. waa anigoo Asia oo soo jeediya.